bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka tubta wararka ee aan ku leenahay youtube-ka waxaad kusoo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal halkan kusoo qaadan doonana waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo bilaabay qorshe xasaasi ah oo ka dhana kursiga uu rabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka Farmaajo. haddaba warayaan daawadayaal idinkaga ra-iisul wasaare Rooble waxa uu wadaa dadaalo xoogan oo uu Fahad kaga hor istaagayo kursiga uu damaca kaga jiro ee yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya qodobkan ayaa daawadayaal halkan idinkugu soo gudbi doona. Djibouti waxay ogolaatay in ay dib u soo celiso hanti ay u heysay dowladda federaalka Soomaaliya. lacagtaasi mise ay gaaraysa yeysa tahay cidda arrintan fududeysay. halkan ayaa daawadayaal idinkugu soo gudbi doona dhacdooyinka la hadal hayo oo ka dhacay garoonka Aadan Cadde magaalada caasimadda Muqdisho. sidoo kale daawadayaal waan idinla wadaagi doonaa muxuu Axmed Qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug uga leexday kuraasta mucaaradka. waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idinkugu soo gudbi doona barnaamijyadeena. qodobadaas ayaa daawadayaal isla falaqeyn doona. ha yeeshee inta aanan guda gelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furan ee gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka aad soo daawatay oo intaasi kasii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa bilaabay qorshe xasaasi ah oo ka dhana kursiga uu rabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble ayaa wada qorshe dib loogu dhigayo doorashada kursiga uu doonayo inuu u tartamo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ee hoob 86 sida aan ogaanay. ra-iisul wasaare rooble ayaa u yeeray gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Muuse Geele Yuusuf wuxuuna ku amray in dib loo dhigo doorashada kursiga hoob 86 oo la filayo in ay Beledweyne ka dhacdo toddobaadka soo socda. ra-iisul wasaare Rooble ayaa gudoomiyaha u sheegay in tartanka kursigan la qaban doono marka uu dalka dib ugu soo laabto xildhibaankii ku fadhiyay Farax Sheekh Abduqaadir oo mar kale rabo in uu u tartamo kursigan kaasoo hadda dalka uga maqan arrimo caafimaad. inta badan xubnaha guddiga doorashada ayaa ka hor yimid qorshaha uu wado Rooble ee la soo marsiiyay gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal waxayna ku adkaysteen in doorashada kursigan lagu qaban doono waqtigii loogu talagalay. Rooble oo ay horey isku qabteen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa xooggiisa isugu geenaya sidii kursigan loo dhaafin lahaa Fahad Yaasiin oo hadda la taliyaha amniga qaranka madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo ama ugu yaraan loo gelin lahaa tartan furan. waxaa muuqata in qorshaha Rooble ay si weyn uga hor yimaadeen xubnaha guddiga mana la garanayo tallaabada xigta ee uu qaadi doono maadaama tan ay ka fashilantay. kooxda madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo oo ciidan badan geysay magaalada Beledweyne ayaa qorsheynaysa inay soo saarato xildhibaano uu ka mid yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la rumaysan yahay in uu u tartami doono gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya. geeska kalena daawadayaal haddaynu eegno Djibouti waxay dib u soo celisay lacag ama hanti ay lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Djibouti ayaa Soomaaliya u ogolaatay in ay dib ugu soo celiso dhismayaal uu ku jiro dhismihii bangiga dhexe ee Soomaaliya faraciisa dalka Djibouti. safiirka Soomaaliya ee dalka Djibouti Salaad Cali Jeelle oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in safaaraddu ay ku guuleysatay in dowladda Djibouti ay u ogolaato in hantidaas ay dib ugu soo celiso gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay in arrintan ay suurto gashay kadib markii uu kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle isagoo aad ugu mahadceliyay madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda Djibouti Ilyas Dawaale. ka safaarad ahaan doorkeennii waan qaadanay oo dadaal dheer kadib ugu dambeyntii waxaa noo suurto gashay in heshiiska ay Djibouti ku wareejinayso hantida dowladda Soomaaliya uu noo soo gabagaboobo 9kii bishan Febraayo 2022 ayuu yidhi Salaad Cali Jeelle.
salaad oo sanad iyo dhowr bilood ku magacaaban safiirka Soomaaliya u jooga Djibouti ayaa sheegay in markii uu xafiiska tegay uu dadaal dheer u galay sidii hantidaas ay dib ugu soo laaban lahayd gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. Guriyihii aan ku lahayn dalkan Djibouti oo farci bangiga dhexe ee dalkan uu ku jiro hadda waxay soo galeen gacanta dowladda Soomaaliya, ayuu yiri Salaad Cali Jeelle. intii uu xukunka joogay madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madmadow badan ayaa galay wada shaqaynta dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti, inkastoo uusan jirin khilaaf weyn oo sababi kara in ay kala tagaan labada dal iyo shucuubta walaalaha ah ee Soomaaliya iyo Djibouti. markaana daawadayaal haddaan eegno dhacdooyinka la hadalhayo ee ka dhacay garoonka Aadan Cadde magaalada caasimadda Muqdisho. nidaamka kaligitaliska Farmaajo ayaa ficil ugub ah la soo baxay iyadoo dadkii difaaci jiray uu ku soo jeestay daqiiqadii ugu dambeeyay xukunka dalka. Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaankii 10aad ayaa loo diiday in uu raaco diyaarad u jeeday Barabe halkaas oo ugu tartami lahaa kursiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Muudey ayaa ahaa shakhsi uu adeegsan jiray Farmaajo oo hormuud u ahaa xilka qaadistii Jawaari iyo Kheyre, waxaana maanta uu dhibano u noqday isla nidaamku difaaci jiray 4 sano. shalay waxaa sidii Muudey looga celiyay in uu garoonka ka safro Cali Yare Cali oo caan ku ah in uu baraha bulshada ku buubuuniyo Farmaajo, kaasoo loo diiday in uu u safro Galmudug. Cali Yare ayaa ku magacaaban gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir, wuxuuna doonayay in uu u tartamo kursiga uu ku fadhiyo Mahad Maxamed Salaad oo mucaarad ah. garoonka waxaa jooga asgar ka tirsan Niza oo toos uga amar qaata Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo u adeegsada in lagu xanibo safarada siyaasiyiinta uusan doonayn in ay xildhibaan noqdaan. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa afka laba far saartay oo iska aamusay kadib markii Farmaajo uga adkaaday dagaalka siyaasadeed isla markaana si dadban loogala wareegay doorashada dalka. wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa mar isku dayay bishii la soo dhaafay in uu nisa ka saaro garoonka, balse ku guuldareystay kadib markii uu shaqayn waayay amarkiisa. ugu dambeynna daawadayaal haddaan eegno muxuu Axmed Qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug uga leexday kuraasta mucaaradka. madaxweyne Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa Galmudug ka dhigi waayay sida maamulada kale Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed marka laga hadlayo doorashada. inkastoo yahay shakhsi Farmaajo meesha geystay, haddana Qorqor uu ku dhiiran waayay xubnaha miisaanka leh in kuraastooda boobo oo dad filan Soomaaliya wadato ku bedelo. waxaa kuraas ku guuleystay dhowr musharax oo mucaaradka Farmaajo ka tirsan, kuwaasoo uu ku jiro ninka sida weyn u loolamaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad ee dalka. Mahad Salaad ayaa isna la filayaa in uu ku soo baxo kursiga uu ku fadhiyo, waxaana Qorqor awoodi waayay in uu fuliyo dalabka kooxda madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo in raggan tartanka ka reebo. Galmudug waa meesha kaliya ee xubnaha mucaaradka Farmaajo ee kuraas ku guuleysteen, iyadoo maamulada kale xitaa loo diiday in ay garoonka ka degaan iskabada in ay tartamaan. mucaaradka iyo muxaafadka Farmaajo intaba way ku tartamayaan kuraasta Galmudug, inkastoo ciddii nugul ee la boobi karo uu Qorqor boobayo, gaar ahaan kuwa daciifka ah. gudaana daawadayaal waa inageynta barnaamijraadka channelka tubta wararka aan ku leenahay YouTube-ka. muuqaalkan laakiin noo saar subscribe noo saar channelka furaga balaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal inta dib isugu kulmi doono nabadgelyo.